kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena halkan waa muuqaalka TV qodobada barnaamijkeena aan ku eegi doono saaxiibayaal waxa qayb ka ah NATO oo diyaarinaysa qorshe ay ciidamo ku geynaysa Ukraine haddaba maxaa ka jiray midowga Yurub iyo NATO ay isku bahaysteen taageerada Ukraine iyo dagaalka ka dhanka ah ciidamada Ruushka warbixin ayaan ka keenna saaxiibayaal labada dhinac ee NATO iyo midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay ballaariyaan natiijada dagaalka Ruushka iyo xubinimada midowga Yurub Finland iyo Sweden bisha May ay codsadeen in ay ku biiraan NATO musharaxnimadooda waxaan labadan dawladood ay si toos ah uga soo horjeedaan ama labadan xubnood ee ururo ay dawladaha caalamiga ku jiraan ay ka soo horjeedaan Ruushku isagu wuxuu raadinayaa inuu gaaro guulo dhanka dhulka ah maadaama ay saaran yihiin cadaadis heer caalami ah dhanka Ruushka waxa uu ku cadaadinayaa guulo inuu soo hooyin karo dagaalka oo weeqi kara guulaha siyaasadeed ee reer galbeedka sirdoonka Ukraine ayaa sidoo kale soo jeedinaya in ciidamada Ruushka ay sameyn doonaan dadaal ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka Severodonetsk iyo Luhansk oo diris la ah ama bariga dhaca waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu qorsheynayaan in 26 Juun ay si toos ah ula wareegaan Ukraine waxay sii waday in ay fashiliso dadaaladaasi isbuucii la soo dhaafay inkasta oo laga saaray ugu yaraan 10 qayb oo dhulka ah oo magaalooyin iyo sidoo kale isugu jira xaafado kale oo ka kooban bariga Ukraine qiyaastii 2500 oo askar difaacayaal ayaa ku haray ama ku jira warshada kiimikada ee Azot ee Severodonetsk taas oo ka kooban 3 meelood oo magaaladu ay uga furan tahay kadib dhicitaankii iyo qabsashadii iyo la wareegistii Mariupol ee Ruushka dagaalku waxa uu u soo baxay calaamad cusub oo ku saabsan adkeysiga iyo xeeladaha sare ee suurtagalka ah Ukraine ay sii haysato deriskeeda ka fiican ama ay ka awood badnaato iyo kan hodanka ku ah muddo 4 bilood dagaaladu ay socdaan si kastaba ha noqotee horumaro ee gaagaaban ayaa koonfurta uu ka sameeyay Ruushka inkastoo lagu jibiyay si kastoo ay noqotona kuwaasi waxay go'aamin karaan aayaha Severodonetsk iyo Luhansk oo bariga xiga caloosha u shaqaystayaal Ruushku taageero ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Wagner loo yaqaano waxaana u muuqdaan in ay goyn doonaan dhammaan tiyaatarka howlaha saadka 15 Juun waxa ay la wareegeen deegaanka Farubevka la yiraahdo iyagoo difaacaya Ukraine dib u soo celinayana meel 10 kilomitir u jirta magaalada Bakhmut ee Luhansk cadaadiska dheeraadka ayaa yimid 22 Juun oo 3 maalin ka hor markii ciidamada Ruushku ay qabsadeen Mykolaiv oo ay u dagaalameen magaalada Yakalovka la yiraahdo iyo sidoo kale Bilohorivka oo ay dhammaan xiga dhanka jidka weyn ee laga godoomiyay Luhansk difaacayaasha Ukraine ayaa wali haysta qadka kale ee sahayda laakiin Ruushka ayaa ku soo xiraya dhammaan dhulkaasi wasiirka difaaca Ukraine ayaa sheegay in uu si ba'an u baahan yahay ama ay ugu baahan yihiin Ukraine hub culus iyo saarad military isla maalintaas war xun baa Ukraine ka soo baxay ama u soo yeeray ciidamada Ruushka ayaa qabsaday tuulooyin dhowr ah oo 10 kilomitir u jira Luhansk horumarka Ruushka waxa uu sameeysaa ama ay u sameynayaan dabagal dhanka galbeedka ah oo ku hanjabaya agagaarka hore ee Luhansk iyo magaalada Severodonetsk golaha Ruushka waxa ay yimaadeen kadib qarash aad u badan dagaalka Severodonetsk ayaa si xawli ah ku bilowday dabayaaqadii bishii May waxaana lagu qiyaasay 10,000 oo askari oo Ruush ah in loo adeegsaday tiro madaafiic ah halkaasina khasaare baaxad leh ay labada dhinac ka soo gaareen inta lagu guda jiray bishaas Ukraine waxay u gudubtay xuduudda Ruushka ee waqooyiga Kharkiv waxayna ku tuurtay ciidamada Ruushka ee difaacay Kherson weerarkii ugu dambeeyay ayaa lagu qaaday xeerka Snegland ama xerada Snegland oo badda ku dhex taala gaar ahaan badda madow taas oo Ruushku uu ku xoojinayo howlgalladiisa dhanka badda ah iyo horumarada uu gaaraya dhanka markii loo eego deegaanada maqnaashaha awoodda ee dhanka Ruushka Ukraine waxay u adeegsatay bartilmaameedyo istiraatiiji ah kuwaas oo saameyn aan caadi ahayn ku leh awoodda dagaalka ee Ruushka tusaale ahaan guutadeeda badda ee Mikhailo loo yaqaano ee Belskay waxa ay sheegtay in ay burburisay taliska Ruushka iyo sidoo kale goob kormeer ah oo Kherson 20 Juun laga sameeyay halkaas oo guutada madaafiicda ee Fyatastas loo yaqaano ay sheegtay in ay ku burburisay bartaliska Ruushku Kharkiv ku lahaa isla maalinkaas maalinta xigtay xarunta isgaarsiinta istiraatiijiyadeed ee Ukraine ayaa soo warisay in taxane
oo talisyada Ruushka ah laga fogeeyay xagga hore weeraro taxanaan ah ama guulo taxanaan ay gaareen. Taliska Ruushka waxa uu fahamsan yahay in hadda booskooda taliska ay halis ugu jiraan meelo qoto dheer oo ilaa 30 kiiloomitir u jira jidda hore ee dagaalka. Dabcan tani waxa ay si xun u saameynaysaa maamulka ciidamada, ayay tiri wasaaraddu. Maamulka oo maqnaa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in taasi ay suuragal tahay in waxyeello xooggan ay gaarsiiso deegaanka iyo guud ahaan bariga. Haddii warbixinada sirdoonka ee Ukraine ay sax yihiin, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin aad uguma faraxsana waxqabadka taliyaashiisa ee uu ku bedelay taliyaashii ugu sarreeyay Kherson iyo sidoo kale kuwa kale oo ilaalada qaranka Ruushka ahaa. Isbedelada baan noocan oo kale ah ee ka dhex jira militariga Ruushka haddii ay run tahay ma aha ficil ay qaadeen xoogagga qarka u saaran guul weyn inay gaaraan, waxayna muujinaysaa cillad joogto ah oo ku jirta habdhaqanka Kremlin-ka ee dagaalka, ayuu yiri macadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu ee Mareykanka. Ka mid ahaanshaha darajooyinka iyo sidoo kale feerarka khasaaraha baaxadda leh ee Ruushka ayaa ahaa mid aad u sarreeya tan iyo markii dagaalku uu bilowday. Ukraine waxay ku qiyaastay 34,100 dhawaanahanba inay ka dishay Ruushka oo askar ah. Ruushka ayaa la sheegay in uu xoojinayo 2 guuto oo xeelad dagaal oo ka tirsan ciidamada shanaad ee ciidamadooda sababtoo ah waxa ay luminayeen awoodda dagaalka. Sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa inay dib ula laabteen ciidamadii xoogga badnaa ee gonugosadka ahaa ee ku sugnaa Donbas si loo celiyo diyaargarowga dagaalka oo ay u sii diyaargaroobaan. Taas ayaana markhaati ka dhigaysa waxa ku soo wajahan dhinacyada. wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa ku waramaysa in Ruushku uu dacweynayo dagaalka awgiis oo bariga Ukraine ka socda cutubyo aad u liito oo ka mid ah kuwa Ruushka. Niyadda Ruushka aad bay u hooseysaa, shaqada la xiriirta dagaalkuna aad uma hayaan, ayuu leeyahay militariga Ukraine. Waxaa ku haray 10 ilaa 25 qof shirkadda gudaheeda, ayuu yiri mid ka mid ah dadka caadiga ee shirkadda ka dhex shaqeeya, waana mid kale oo suuragal ka dhigi karta in magaalada la duqeeyo. Hadal kale ayaa la daabacay waxaana ay sheegaysaa inay ku saleysan tahay dadaalada lagu doonayo in ciidamada Ruushka ay ku joojiyaan duqeymahan micnaha lahayn. Ciidanka Ruushka waxa uu bixinayaa dhiirigelin dhaqaale oo la taaban karo si loo sugo shaqaaleysiin dheeraad ah iyada oo la sii kordhinayo imtixaan la'aanta da'dooda, dadka caafimaadkooda iyo sidoo kale in si toos ay u taageeraan dowladda Ruushka iyo dadka ciidamada meelaha qabsaday sida ay tilmaameen. Warbixinada la daabacay waxaa ka mid ah in ay hadda sababta ay u taageeraan Yurub iyo sidoo kale sababta ay u garab taagan yihiin. Su'aasha ugu weyn waxay tahay bal leeyahay maxay taageerada Ukraine ka heli doontaa xubnaha qoyska ee reer galbeedka? Guusha cad ee Ukraine ay raadinayso iyo inta badan taageerada London iyo Washington waa in laga saaro askarigii ugu dambeeyay ee Ruushka dhul kasta oo Ukraine ka tirsan oo ku jira ama ka mid ah Crimea iyo Donbas, ayuu yiri sarkaal sare. Ruushka ayaa waxa uu qabsaday Donbas iyo Crimea horaantii 2014 ka hor inta uusan duulaan ballaaran qaadan 24 Febraayo ee sanadkan. Tan iyo markaas boqortooyada Ingiriiska, Poland iyo dalalka Baltic la yiraahdo waxa ay arkeen dagaal madax bannaanida Ukraine inuu yahay dagaalka awoodsiinta Yurub, halka Faransiiska iyo Jarmalkuba ay qaadeen hab taxadar badan oo ay isku ilaalinayaan si aanu ula kulmin weeraro qorsheysan. Ku noqoshada xuduudaha kahor Febraayo 24 waa mid la aqbali karo Yurubtii hore, laakiin ka saarista Ruushka gebi ahaanba waa waxa kala qaybiya xulafada. Haddii Ruushka laga saaro Crimea iyo Donbas, taasi waa duulaan taas oo horseedi karta dagaal nuclear ah, ayuu yiri sarkaal sare. Suurtagalna ma aha in la sameeyo, ayuu leeyahay. Guud ahaan saaxiibayaal, halkaas aynu kusoo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale inta aynu ku kulmi doono saaxiibayaal. Nabadgelyo.